walaalayaal maanta waxaynu isla eegi doonaa intaynan horta gudagelin ma garanaysaa waxay ka dhigan tahay leadership bonus iyo sida lagu gaadho. bal marka hore waxaynu isla eegi doonaa CC-yada kala duwan ayna soo gala magacyada ay kala leeyihiin. Personal case credit waa CC-yada adiga shakhsi ahaan aad iibsato. Personal CC baa la dhahdaa. waa waxa ma alaabta aad ka iibiso macamiil online kaaga dad ka iibiso oo qof aad kaga iibiso iyo haddii aad ma garanaysaa adiguba aad iska u iibsato labadaaba waxa loo yaqaanaa maxay waxa la oranayaa personal case credit baa la oranayaa. waa CC account kaagi ama ID-gaagi uu iibiyay oo qof kale aanu iibin weeyaan. waxa jira haddaba waxa loo yaqaano iyagana preferred customer CC ama preferred customer case credit. preferred customer case credit wax kale maaha waxa weeyaanun waa qof cusub oo company-ga aad soo diiwaangelisay oo aan weli gaadhin FPO. halkan qodob baan rabaa inaad ila garato. qodobkaas waxa weeye maanta haddaan labada CC gaadhoon buuxiyo haddaanan weli account-kayga upgrade ku samayn oo aanan gaadhsiin yacni form baa la buuxiyaa qofku markuu labada CC gaadho formkaasi oo ah mid ma garanaysaa waxa weeyaan dhalashadaada iyo upgrade baad samaynaysaa. haddaanad upgrade samayn kadib waxa weeyaan ma garanaysaaye wuxuu noqonayaa ma garanaysaa weli preferred customer baa tahay. sidaa awgeed qof waxaa laga yaabaa 2 bilood 3 bilood ka hor buuxiyo darajada koobaad inuu weli kuu buuxinayo active-kaagi ama se 4cc kuu buuxinayo. sababtuna wax kale maaha weli account-kiisii baanu ku samayn upgrade. okay fiiri markaa teamkaaga hadday jiraan dad weli ma garanaysaa wax weeyaan alaabtu iska yar adeegta weliba iyagoo haysta 30% ayay welina iska yihiin maxay preferred customer BC baan ugu qornaa account-kooga. weli qofkaasi markaa xaq uma leh inuu dad soo qoro waayo hadduu rabo inuu dad soo diiwaangeliyo shuruudda ku xidhan baa ah inuu marka hore yahay FPO. haddaba walaalayaal preferred customer case credit waa CC-yada cusub ee dadkaad soo diiwaangeliso dhankooga kaaga iman doono weeye. walaalayaal waxaa jira markaa wax la yidhaahdo active case credit af soomaali ahaana noqonaysa CC-yada active-ka ah. CC-yada active-ka ah ee ugu yar ee bil walba company-gan inaga rabo waxa weeye waa 4 CC. 4taas CC haddaad ku dadaasho xuquuqo badan baad company-ga ku yeelanaysaa horumaro badan baad ka gaadhi dhammaan hadiyadaha kala duwan ee company-ga ayaad xaq u yeelan. sidoo kale waxa weeyaan ma garanaysaa darajooyinka company-ga ayaa iyaguna noqon doona kuwa aad iyo aad kugu fudud. mar walbana waynu ku talinaynaa inaad ilaaliso personal CC-gaaga iyo preferred customer CC-gaaga iyo weliba ma garanaysaa waxa weeyaan retail-kaaga. wuxuu ka imanaya active-kaagu ama CC-yada active-ka waxay ka imanayaan waa saddexdaas weeyaan. waa maxay? waa retail, waa yani retail waa maxay? alaabtaad sii iibinayso ee macaamiishaada aad ka iibinaysay ama online ka iibi oo linkigaaga laga iibsado ama waxa weeyaan qof kula jooga oo macmiil alaabta ka iibsado. waxa weeye taasi waa retail oo waa alaabaad shaqaysay oo active. haddaad 4 CC ku samayso active-kii uu ku buuxaa. haddaba walaalayaal adiga gurigaaga alaabaad u baahan tahay baa jirta. alaabta wixii account-kaaga ka iibsataana iyagana waa active. dad cusub haddaad soo diiwaangelisana waa active. minimum-ku waa maxay bishii lagaa rabo intaasi? waa 4 weeyaan. 4 CC ayaa minimum ka badanna limit ma leh. waayahay waxaan rajaynayaa inaad active-kana fahantay macnaha laga wado iyo sida loo calculate gareeyo ama se loo xisaabiyo. haddaba walaalayaal waxaa jira wax la yidhaahdo personal non-manager case credit ama CC. personal waa CC-yada shakhsiga ah. CC-yada ma garanaysaa wax weeyaan aad samaysay ee dee aad ku dadaashay weeye.